بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمها بدن meel walba waa naga daawanaysaan. ramadaan wanaagsan, ilaahay soonka iyo salaada iyo acmaasha dhammaanteena hanaga wada aqbalo insha allah. waa walaashiin najma oo markale idiin soo noqotay. maanta waxaa idiin wadaa mowduuc aad dhammaantiin ku wada riyaaqi doontaan hadduu rabbi qadaro insha allah biidni illaahi albaari. alxamdulillahi rabbi alcaalamiin. muuqaalkan waxaa kaga hadli doonaa mahadnaqa alxamdu iyo ashukru. sidee ayay mahadnaqu u kordhisaa nimcada? maxaa way farqiga u dhaxeeyo alxamdu iyo ashukru? iyo sidee qalbigu u dagaa marka aad tiraahdid alxamdulilah? allahu akbar. ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri in shakartum la aziidannakum. sidoo kale nasuubanayn sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid mar walba mahadnaq badan haddii ay dhibaato haysato. even haddii dhibaato haysato xitaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid aad iyo aad u mahadnaq badan. muuqaalkan daawo si aad u ogaatid farqiga u dhaxeeyo alxamdu iyo ashukru iyo faa'iidada mahadnaqa iyo sida u noqon kartid qof mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mahadnaqa. haddii aad ka faa'iiday fadlan like saar, commentiga waxaa noogu soo qortaa alxamdulilah, sidoo kalena saaxiibadaada la wadaag. hagaag waxaa hor u gali doonaa mowduuceena. waxa koowaad oo ka hadli doonana waxay tahay alxamdu iyo ashukru farqiga u dhaxeeya. alxamdu waa mahad guud oo mar walba ilaahay lagu amaano. alxamdu waa mahad guud oo mar walba ilaahay lagu amaano xaalad kasta. hadday farxad jirto, hadday murug jirto, hadday walwala jirto, mar walba waxaad tiraahdaa alxamdulilah. ashukru se waa mahad gaar ah oo aad ku bixiso nimco gaara oo aragtid sida caafimaad, iimaan, shaqo iyo qoys intaba. hadda waxaa u malaynaya inaad kala fahantay farqiga u dhaxeeyo alxamdu iyo ashukru. si ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay in shakartum la aziidannakum. haddii aad igu shukrisaan oo idin ziyaadin doonaa, oo nimcooyinka gaarka ah haysataan ay idin ziyaadin doonaa sida iimaanka, shaqada, qoyska, wax walba oo nimcooyinka gaarka oo adiga haysatid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku ziyaadin doonaa. qaybteena labaad, maxaa dhacaya marka ilaahay u mahadnaqdo, ayaa rabaa inaa si sax ah u wada ogaano dhammaanteena. marka koowaad qalbigu wuu degayaa markaad tiraahdo alxamdulilah. waxaa si sax u ogaan doontaa wax walbo inay gacanta ilaahay ku jiraan. qodobka labaad, nimcada waa ay badataa. qofka mahadnaqa badan mar walba ilaahay wuu u ziyaadiyaa wax yarka ah uu haysto. sababtoo ah waa qof mar walba aad iyo aad u mahadnaq badan. qodobkeena saddexaad, nolosha aragti cusub ayaa ku egtaa. tusaale halkaa dhihi lahayd maxaa waaye, waxaa dhehaysaa maxaa haystaa. rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam xitaa markuu dhibaato ku jiro waa mid mar walba mahadnaqi jiray, u dhihi jiray alxamdulilaahi calaa kulli xaal. anaga xagee joognaa? mar walbo, xaalad walbo, nimcad walbo, wax walbo oo haysatid inaa mar walba alxamdulilah dhahdid. wallaahi waa maxaa la dhahay, waa iimaan. taas naftirkeeda waxaa waaye iimaankaaga oo ziyaadsan. qaybteena saddexaad waxaa kaga hadli doonaa tusaale yar oo qalbigaaga taaban doono. ka fikir qof xanuunsan oo haddana leh alxamdulilah, weli waa neefsanaya. ka fikir qof shaqo la-aan ah oo weli dhahayo alxamdulilah, waxaa haystaa caafimaad iyo iimaan intaba. marmarka qaarkood waxaa kaa maqan waa imtixaan, laakiin waxa aad haysatid waa nimcad aan la tiri karin. hadduu ilaahay kaa qaado wax yar, tusaale oo kale caafimaad yar, xanuun gaar ah oo aad qabtid uu jiro, shaqo la-aan, caqabad dhan dhaqaale, wax yar ee kaa maqan, waxaa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu diyaarinayo waxa aad filanaysid boqol jibaarkeeda oo ka weyn. qaybteena afraad waxaa kaga hadli doonaa sidee loo noqdaa qof mahadnaq badan oo mar walba alxamdulilah yiraahdo. wax kasta waxaa qorataa 3 nimcad oo gaar ku ah oo adiga haysatid. salaad kasta waxaa ku celcelisaa alxamdulilah si miyir leh, macnaha si qalbiyan ee ugu celceli alxamdulilah. markastoo dhibaato ay timaadana waxaa carabkaaga bartaa, naftaada bartaa inaa alxamdulilah dhahdid. wax allaala waxay doontaa ahaato inaa mar walba alxamdulilah dhahdid oo aad naftaada bartid. markasta oo dhibaato timaada waa inaad tiraahdaa alxamdulilah. ku tababar naftaada. mahadnaqu waa wax yar oo fudud oo la baran karo oo carabkaaga aad bari kartid inuu mar walba ku celceliyo xaalad walbo aad ku jirtidba. waxaa isla joognaa gunaanadkii. walaalayaal, noloshu ma ahan
in wax walba ku hagaagaan si aad u mahadnaqdo balse mahadnaqu waa sababta wax walba ay u hagaagaan marka xigto aad tiraahdo alxamdulillah ku dheh qalbi buuxa ku dheh adigoo og inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku maqlo ku dheh adigoo rajeynayo kordhin iyo barako insha Allah Allah naga dhigo kuwa mahadnaq badan Allah qalbiyadeena ku beero qanacsanaan ziyaade haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan like gareey subscribe nare asxaabtaadana la wadaag insha Allah si muuqaaladan muuqaalo kale ka duwan oo ka qurux badan wax tar noole dhamaanteena aan idinku soo gudbiyo like taada ani waa dhiirigelinteeda insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin